jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Selici iyo ku-xigeenka gudoomiyaha shirkadda DB1 ee maamusha dekedda Berbera Adnan Alabara ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhisidda wejiga hore ee dekedda Berbera oo dhan 400 mitir. 3 bisha March ee sanadkii 2017 ayaa ahayd markii si toos ah lagu wareejiyay maamulka dekedda Berbera shirkadda DB1 oo muddo 30 sanadood ah laga kareeyay. munaasabadan ballaaran haddaba saaka oo loo qabtay dhagax dhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, baarlamaanka, gurtiga, salaadiin, aqoon-yahano iyo waliba mas'uuliyiinta gobolka Saaxil. marayaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaa ugu horeyn xafladaasi ka hadlay. ayaa ka asabay in la dhagax dhigo dekedda 400 mitir ee container terminalka. sida arkaysa waxaa halkaa ku sawiran muuqa iyo nidaamka iyo container terminalka iyo taawaradeedaas ayaa insha Allah waa horumar weyn. in badan baynu saadaalinaynay, in badan bay dadku isweydiiyeen, dadka qaarna waxay 2 sanadood ayaa dib loo dhigayaa. laakiin muhiimadda weyn ee maanta halkan isku nimideen markaati ka ahaano waxa weeyaan in dekedii la dhagax dhigay. waxa kaloo fadhiya halkan ku soo dhaweynayaa shirkadii dhismaha bilaabaysay oo mas'uulkii ugu sameeyay halkan ka fadhiyo oo shirkadda la yiraahdo Shifa Al Nahda oo ninkii ugu sameeyay noo fadhiyo Abdul Shami isaguna kamida wafdiga runtii muddo dheer ayaynu sugaynay. waa horumarkii u horeeyay Soomaaliland bilowga ahaa. waxaan mar walba in maslaxaad bay ka mahad celinayaa ajiibidaas. Adnan Alabari oo ah ku-xigeenka gudoomiyaha shirkadda DB1 ayaa dhankiisa si ballaaran uga hadlay fursadda qaaliga ah ee Soomaaliland iyo DB1 ba ugu jirta maalgashiga dekedda Berbera. will create a gateway for potential investors to come from abroad. The intention is not to build this port only. The intention is to build what's outside the port, what's around the port, how to attract investors, how can we have this body which will be built dynamic internationally, not only locally. This will boost up the local employment. It will boost up the educational and the development standards of those we employ. It will also boost up the education and the development of those interact with the port, whether from the local community or from those who will come from abroad and invest with us in the land. ugu dambeyntiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa sheegay in ay rumowday hamigii ahaa in Soomaaliland hesho maalgashi caalamiya. balaarinta dekedda Berberina ay muhiim u tahay madaqada Geeska Afrika. waxaa kaloo uu ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland in sanadkan dabiiqadiisa la bilaabi doono wadadii Berbera Corridor, taasi oo uu sheegay inay si weyn ganacsiga u fududeyn doonto. maanta waxaynu halkan joognaa inaynu dhagax dhigno balaarintii dekedda Berbera wejigii koowaad oo ay dhisayso shirkadda Shafa Al Nahda Company oo maamulkeedii ninkii madaxdii u sarreysay Abdo Sharaf nala joogo. inta dekeddu iyo casriyeynteedu Berberi waxay ahmiyad weyn u leedahay kobcinta dhaqaalaha waddanka iyo geeskaba. waxay soo kordhin doontaa insha Allah horumar, shaqo abuur iyo isku xirka madaqada Geeska Afrika. rajaynayna dhismaha dekedda Berbera, dhismaha Friisuunka iyo airportka cusub iyo weliba wadada Berbera Corridor inay noqon doonaan bil wanaagsan maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland. si kastaba ha ahaatee mas'uuliyiinta ka kala socday xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DB1 ee saaka dhagax dhigay wejiga koowaad ee dekedda magaalada Berbera oo 400 mitir daboolka kama qaadin xilliga dubaha lagu dhufanayo lana bilaabayo dhisidda dekedda cusub. inkastoo ay goobjoog ka ahayd shirkadda qaadatay kontraaga dhisidda dekedda magaalada Berbera.